marka waraysa Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya kalama dhaxayso maamul goboleedyada wax tartana wax isdhaliila ama wax xumaana oo kala dhaxaysa ma jirto kaliya waxay dawladda federaalka ee Soomaaliya fulinaysaa laba mas'uuliyadood oo midda hore ay tahay inay dhisto qaran Soomaaliyeed oo ku dhisma si cadaalada oo ku dhisma si dimuqraadiga oo ku dhisma si haysata taageerada shacabka Soomaaliyeed isla markaana la hay'ad dawladeed inay dhisto mar labaadkana mas'uuliyadda labaad ee saaran dawladda federaalka waxa weeye inay dhisto nidaam federaali ah oo waafaqsan nidaamyada caalamka ka jira ee Soomaaliya lagu dabaqi karo oo si xor iyo xalaala doorashadiisa iyo systemkiisu uu u socdo isla markaana nidaamka federaalka ay sidoo u shaqeeyo adduunka isku dhow yihiin laakiin kuwa Soomaaliya lagu dabaqi karo in nidaamka la sameeyo oo laga dheeraado dhaqankii soo jireenka ahaa muddada badan soo socday ee ah in qof wax lagu dhiso dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa in institution wax lagu dhiso hay'ad dawladeed oo si dimuqraadi ah ku yimid oo taageerada shacabka haysta in wax lagu dhiso marka dariiq dawlad barasho dariiq nidaam dawlad dhisid ayaan ku jirnaa marka qaar kood waxyaalo waa la isku qabanayaa laakiin dawladda Soomaaliya waxa ka saaran mas'uuliyad in dalkan oo muddo badan burbursanaa nidaam fiican oo shacabka Soomaaliyeed aan mar labaad ku burburin inay dhisto marka taas weeye si nidaam ahaan maamul goboleedyadu ma dhihi karaan dawladda dhexe ayaanu xiriirka u goynay ma dhihi karaan dalkan waa dal Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed baa mas'uul ka ah laakiin qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaha soo koraya xubnaha ka dawladda federaalka in laga wada shaqeeyo sidii dalkani dawlad xoog leh oo nidaam leh oo ku shaqeysa sharciga iyo dastuurka dalka sida uga dhismi lahayd mas'uuliyadaas inay kala shaqeeyaan dawladda weyn aad u mahadsantiin